Memorandum of Understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Similar agreements have been concluded by other states, and there is no reason for the government of Somalia to incite hostility. Ethiopia's name can never be associated with any one of the allegations. To join hands to eliminate terrorist groups that are causing chaos and mayhem. Political dispensation ka laba definition buu leeyahay. Mid waxaa weeye mar oo dictatorship la afgambiyo wadanka xeer ma laha. Qof walba wuxuu rabo subin karaa. Especially unique weeye. Midda labaad waxaa weeye waqti aad qalad gali kartid oo laga cafinayo. Midda special permission ka wuxuu ku xisaabsan yahay mar uu wadan kale qaadan karo dhulkiisa because wadankaaseti dhulkiisa ma manage gareyn karo dawladiisa wax ma qaban karto. Kaaseti internationally waa loo ogolaanayaa hadduu wadan kale dhulkan qaato. Haddaad fiirisid taas waa modern day colonization weeye. haddana wuxuu ku justify gareeyay isteedyaasha kale way la geli karaan deal wadamo kale. Basically meesha waa la boobayaa anigana maxay igu soo horjeedaa. Markaas wuxuu dhahay adiga ayaaba aniga igu taagan hostility igu heeso. Adaba you're in my way bo. haddana wuxuu ku soo gabagabeeyay ha ismashquuline inaad ka fikirtid saa isula shaqayn lahayn aan kaaga celiyo terroriska iska dhaaf dhulkaan qaadanayo. ciil haddaad qof Soomaali tahay waa inaad xanaaqdid markaad videogaas aragtid because political dispensation ka iyaga noo keeneen. Soomaaliya dawladeeda markii la afgambinayay yaa hub siiyay qof kastoo rebel group yaa hub iyo military base iyo lacag iyo support siiyay in ay not only dawladda afgambiyaan but dhulka burburiyaan ee dadka dilaan yaa lacag ku siiyay. yaa maantana keenay political dispensation inaan joogno si dhulkeedan lagu qaato. yaa ka soo shaqeynayay. haddaad qof Soomaali tahay waad in aad xanaaqtid no matter what region you're from because dhulkaadii waxay noqonaysaa dhul Ethiopia ee leedahay. inta lugaha laga jaray gacmaha laga jaray qalbiga laga madoobay ayaa maanta waxa lagu isticmaalayaa political dispensation si dhulkaada lagu qaato oo lagu dhaho adiga ayaaba aniga igu soo taaganbo.